السلام عليكم وهذه سلامي سأوتي محاصرة اللاطي عيارتي برازيل iyo South Korea طبعا waxay ku yimaatay 4-1 halka Neymar uu ku soo laabtay layabka taasna waxay ka dhigtay inuu si ka dhaqsi ah ku soo koobtay dabcan Neymar waxa uu kulamadii horeeto World Cup sidaan oo kaleeto wadankiisa kii lagu qabanayay 2014 2018 sida qolo dhaawacmay Brazilna way ka soo kaba waysay dhaawacaas oo Neymar ka gaaray laakiin hadda Neymar wuxuu ku soo qabtay 3 kulan maadaama uu ka maqnaa laakiin kulankani waa ku soo bilowday waxa uu saxiyay goolna waa uu dhaliyay Rigora goolna waa caawi taas waxay ka dhigtay xulka Brazil inay u soo baxaan wareegga xiga ee sideeda waxayna wajihi doonaan xulka Croatia oo maanta Rigora ku soo baxday iyada naftigeeda 3-1 ciyaar la isdhaaf waayay oo kubada qurux badan ay soo dhawaa laba dhinac ay soo bandhigeen taasna waxay keentay in ay lagu kala la gaaray ka sartaan Rigora lagu kala baxo waxaana moodaa in Japanese aysan diyaar u ahayn inay Rigora tuuraan sababtoo qaabka Rigora tuurayeen ma ahan qaab professional ah waxaa ka muuqata laciifnimo markii soo gaaray qaybta Rigoradii meesha sameeyay sidii loogu rabay xitaa haddii ay sameyn lahaayeen dhammaantood waxaa moodaa hal dhinac inay Rigorada ka soo barteenba xataa aad u energy oo ka dhamaaday taasna waxay sahashay in Croatia ay si sahlan ay kaga soo baxdo waxaana ammaan mudan Portieri Croatia ku jira oo badbaadiyay Rigorooyin badan kaasna waxa noqday geesiga garoonka maadaama Rigorooyin badan badbaadiyay haddii aan ka gudubno kulankii xal la ciyaaray Ingiriiska Senegal wuxuu ahaa kulan naftigiisa cajaa'ib ah Senegaleska waxay cuneen goolo fara badan laakiin ay naftooda diyaar u meen xalayna kulan dheelayaan kulan weyn oo sidoo kale taa waxaa ka muuqda naftigooda laciifnimo xooggan laakiin waxaa moodaa sida la sheegay tababarahooda waxa uu xanuunsanaa caalamiinta meesha sameeyay kulamadii hore laakiin Senegaleska waxaa moodaa inay diyaarsaneen hadda kulanka ugu muhiimsan wuxuu ahaa dhaxmari doonaa maalinta 10 bisha ay Sabtida ku aadan tahay Ingiriiska iyo Faransiiska kulankaasna wuxuu noqon doonaa kun caqabadiisa wato cidna aan ka sheekay karin waayii horeeto waxaan leeyahay la soo baxay nasiib laakiin hadda nasiib way ka gudubtay waxay maraysaa maxaa taqaana oo garoonka la imaanaysaa dabcan ani ahaanteeda waxa is leeyahay cidii qadka dhex ku guuleysato ayaa badi doonto dabcan labada xulba qadka dhex ay aad ugu wanaagsan yihiin Jude Bellingham iyo Reece iyo Henderson markii la dhilayaan waxaa muuqda islahan aan caadihin ka dhalatay dhinaca kale tan ma ka yareystaano dhexdoodana aad ay ugu wanaagsan tahay taasna waxay keenaysaa waxa lagu dagaalami doono qadka dhexe cidii qadka dhexe maamulka qabsato ciyaartaasi guushi gacanteeda ay ku haystaa inkastoo kubadda walba ay ka dhici karto dabcan dhankan waxa ka soo jeesan doona Isbaanishka oo ciyaari doona Brito haddii uu soo gudbo Morocco soo gudbo waxa ay Portugal ka soo gudbo waxay ciyaari doona naftigooda wareegga sideedaad waxaana xiiso u yeeshay waxaa moodaa dhanka sida kala baxeen in Europe imaadooda dhanka ka imaadonto dhanka kale Latin America Brazil ay arkayaan dabcan sida loo xaliyay Isbaanishka waxa uu si cad iskaga reebay dhankaasi groupka ay Brazil oo gal lahaa kaalintood ku soo bixi lahaa laakiin waxa uu diiday inuu groupkaasi dhimashada dhex galo maadaama ay kaga sahlan tahay kooxdan Europe isla dheelaan uu ka badi kareeto taasna waxay keentay in Isbaanishka doorto kaalinta labaad inuu ku soo baxo haddii laakiin kulliga Jarmalka laga badi lahaa Isbaanishka saacada warkiisa ma jiri lahaynba oo labadooda waxay aadi lahayn guriga laakiin Isbaanishku u bareeray maadaama Jarmalka in muddo World Cup uu soo badin ay kaga cadad inuu badiyo taasna waxay ahayd chance siiyay Jarmalka uu ku soo baxay Isbaanishka leeyahay guud ahaan kulamada xiisaha leh Netherlands iyo Argentina waa kulan kale oo xiiso leh waxa dib loogu laaban doonaa 1998 kulankii dhaxmaray Argentina ay ku badisay 2-1 ay ku badisay Netherlands taasna waxay noqon doontaa miya Arsenal Argentineska ay ka badi doonaan sidaan oo kaleeto 2-1 waan arki doonaa waxaan isleeyahay taasna waa ciyaar furan haddii difaac dhanka Holland difaacu uu fiican yahay laakiin waa ciyaar furan naftigeeda cidii guuleysato ayaan arki doonaa kulamada uu si xoogo uu xiiso ay sii yeelanaya World Cup kulamadiisa uu si dambeeyo haddii aan nala socod intaan waxaan ka codsanaynaa nolol gareeso asxaabta noo gaarsiiso ku mahadsantahay la joogaaga waxaan ku leeyahay maalin wacan